بسم الله. السلام عليكم السلام أصحابتي قليل وحرجنا في عنتين سود هذا كسو بيرجنا كنا لايك صار فيديو شير جري عاد حد بعض ما صنتها وحين قاعد نسا إن نستفيد بكورنا ثانك يو كهر سنة كعصب لما تكون لوات اللي هذا يزبدل نفسي يزبدل الأولاد سنة كعصب الباب دو وصوص على لكن سؤال أديكو مرة بتاع الباب كاسين قشيت أديكو أنا واحد بيسك بدلين مثال سيدي قف عصب ونولش يسدي بقري سيدي أي دونيسا أما قابل أي دونيسا سنة كاسين وكوكو شو وكوكو عرت sanadka 2020 waa uu dhamaaday bilooyin yar ayaa ka harsan 2 bilood iyo maalmo ayaa ka harsan sidaas awgeed ma doonaysaa noloshaada naftaada inaad bedeshid saameyn weyn aad ku yeelatid sanadka cusub ee soo socda ma doonaysaa 2026 inuu kugu dhasho sida hadda tahay ama qof iska bedelay sidii uu ahaa naftiisa qaabeeyay noloshiisana dib u qoray dhalashada sanadka cusub ma ahan isbedel nololeed ee waa fursad cusub oo naftaada ku hagaajin karto isbedelku waa ficil maalinle ah ee ma ahan riyo sanadle ah taasoo la sugaya sanad kasta cusub sanad kasta cusub dadku waxay ku fikiraan noloshooda inay qaabeeyaan naftoodana wax ka bedelaan sababtoo ah waqtiga ugu habboon ee qofka uu naftiisa iyo noloshiisa wax ka bedeli karo inta badan dadka noloshooda kuma qanacsana oo waxay rabaan inay bedelaan sababtoo ah isbedel la'aan noloshu isma bedesho si aad isku bedeshid waa inaad samaysaa isbedel maxaan ka wadaa waa inaad jir ahaan isku bedeshaa maskax ahaan isku bedeshaa caqli ahaan isku bedeshaa dhaqamadaada iyo dabeecadaha inaad wax ka bedeshaa haddii aad doonaysid beri wanaagsan bilow maanta qofka waqtigiisa maamula waa qofka noloshiisa xukuma isbedel nafsi iyo nololeed micnihiisu waa in la bedelo habdhaqankaaga fikirkaaga iyo nolol maalmeedkaaga si ay kugu horseedo farxad xikmad iyo horumar isbedelka nafsiga ah wuxuu ka bilowdaa xoogga saar dareenka gudaha sida fikirkaaga niyadaada dareemahaaga gudaha ah iyo naftaada waxay kuu sheegayso isbedelka nolosha siduu yahay hab nololeedkaagu ma ku qanacsan tahay mise waxaad rabtaa inaad bedesho caafimaadkaaga xiriirkaaga waxbarashadaada shaqadaada iyo maamulka waqtigaaga taariikhda mawduuca asalka iyo horumarkiisa dad badan oo kala duwan ayaa sanado badan u adeegsaday aqoonsiga isbedelka diimo kala duwan iyo falsafado kala duwan islaamka naftirkiisa hijrada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo wajiyo badan oo taariikheed kuwaasoo ina tusaya in qofka muslimka ah uu mar walba isbaaro naftiisana uu la socdo uu toobad keeno waxa ka khaldan waxa u saxan uu ogaado noloshiisa meesha ay ku socoto iyo siday tahay uu la socdo xilligan casriga psychology cilmu nafsiga ayaa ogaaday in markaan go'aan qaadanayno dhanka isbedelka ah waxaan la kulmayna caqabado fara badan iyo challenges nololeed kuwaas oo kale ah walwal niyad jab hubanti la'aan iyo inaan qorshe buuxda aanan u haysanin meeshaan u socono iyo sidii aan ku gaari lahayn tusaale daraasad la sameeyey ayaa tilmaamaya in go'aanada la qaato sanadada cusub badankood ay guuldareystaan bilowgiiba sababo la xiriira iska caabinta nafta isbedelka ma jecla oo waxay doonaysaa wixii ay la qabsatay inay samayso rutiinkeeda ay ku socoto isbedelku way iska caabin doontaa sidaas awgeed go'aamada badankood way fashilmaan su'aal maxaa kaa hor istaagi kara isbedelka adiga aad samaysay dadka iyo bulshada iyo familkaaga iyo asxaabtaada wuu saameyn doonaa wayna ku su'aali doonaan sidaas awgeed haddii aysan kaa dhab ka ahayn oo aysan kaa go'neen sida ugu fudud ay u burburi doonaan isbedelkaaga waadna guuldaraysan doontaa fahamka sababta isbedelka ka waran haddii aadan ogeyn sababta aad isku bedelaysid ama aadan fahamsanayn isbedelka iyo qaabku u dhaco isbedelku wuxuu u baahan yahay horumar joogto ah iyo isla xisaabtan joogto ah oo naftaada iyo noloshaada aad la gelaysid inta badan dadkuna ma samayn karaan oo ma iska caawin karaan waa hagaag sidee loo sameeyo isbedel guuleysta nafsi iyo nololeed marka ugu horeysa samayso yoolal ismarti ah ha ka dhigin yoolkaaga wax ka baxsan maankaaga iyo noloshaada ayna macquul ahayn inaad gaartid ee ka dhigo wax macquul ah oo la cabiri karo lana gaari karo waqtigoodan uu yar yahay qodobka labaad kala jebinta yoolalkaaga u kala jebi kuwo sanadle ah kuwo bille ah kuwo isbuucle ah iyo kuwo maalinle ah kuwaasi oo dhan iyagoo u shaqaynaya yoolkaaga weyn ee fog qodobka saddexaad qorshe iyo jadwal cad samee qorshe howleed samee jadwal cad hubi oo isla xisaabtan maalin walba inaad wadid isbedel yar oo joogto ah maalin walba qodobka afraad raadi taageero qof kugu kaalmeynaya isbedelkaaga badanaa isbedelka shakhsi keligiisa kuma guuleysto inta badan ilaa qof adag mooye sidaas darteed raadi taageero qoys saaxiib ama family qodobka shanaad dib u eegis iyo la socod ku samee qorshahaaga iyo yoolkaaga bil kasta isbuuc kasta maalin kasta bil kasta ku samee dib u eegis oo dib u baar qaladaadkii kaa dhacay wixii kuu saxmay wixii kuu hagaagay casharkaaga ka baratay iyo waxaad ka bedeli lahayd tallaabooyinka soo socda run ahaantii dhalinyaradu waxay wajahayaan caqabado dhaqaale shaqo la'aan burbur qoys waxbarasho oo xadidan iyo weliba niyad jab iyo rajo xumo kuwaasoo sabab u ah amni xumada magaalada iyo isbedel la'aanta siyaasadda sidaas awgeed ka soo bax riyadaas ka soo bax niyad jabkaas iyo walwalkaas oo fiiri dhinaca kale ee nolosha sidaas awgeed
yeelo rajo. Fiiri dhalinyarada guulaystay dhinacaas keliya ha fiirin ee yeelo rajo san. Waxaa jira tusaalooyin dhalinyaro Soomaaliyeed oo guulo waaweyn gaaray dhinacyada kala duwan ee nolosha. Qaar ku dadaalay waxbarasho, qaar bilaabay ganacsiyo kadibna ku guulaystay, iyo qaar badan oo ku howlan adeegyada bulshada, kuwaasoo muujinaya in isbeddelka dhab tahay uu ku jiro anaga dhexdeena, uuna yahay mid dhab ah oo la gaari karo. Sidoo kale waxaa jira cadaadis nafsi ah oo xooggan. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid maxay tahay inaan isku bedelo haddii baan noloshayda u qanacsanahay, laakiinse niyaddaadu ma degana, qalbigaaguna ma qanacsana, riyooyinkaaguna way naafoobeen, rajadaada iyo hiigsigaaga iyo hamigaagana wuu dhimanayaa. Adiguna waxaad dareemaysaa ama laga yaabaa inaad dareemaysid inaad luntay. Halkaas ayaadna ka bilaabi kartaa. Rabbi ayaa kula jira, Ilaahay ayaa garabkaaga ah. In asiga loo jeesto, xiriirkiisa kaala dhexeeya la hagaajiyo, naftaadana aad baratid, aad toobad keentid, Rabbina uu soo laabid, kadibna aad weydiisatid ama aad ku ducaysatid inuu jidkaaga uu ku iftiimiyo. Markaasi noloshaadu way isbedelaysaa, Rabbina wuu ku hanuuninayaa. Noloshaada iyo naftaadana sidii aad doonaysa ayay noqonaysaa. Naftaadana way xasilaysaa, noloshaadana way degaysaa. Sidaas awgeed Rabbiga u soo laabo, u toobadkeen, Rabbigaaga isku xir, asiga ayaa ku hanuuninaya. Asiga ayaa yaqaan meesha quran iyo waxa quran. Mararka qaar adiga waxaa soo rafaada iyo dhibaatooyin la soo kulmaya. Haddii aad leedahay hami iyo higsi fog ee nolosha, waa rajo, waa fure, waana bilowga safarkaaga, waana furaha rajada mustaqbalkaaga. Dhalinyarada badan ayaa waxay sugayaan sanadka cusub in sidii sixir oo kale wax walba isku bedelayaan. Taasina ma dhacayso. Laakiin runta waxay tahay haddii aad maanta isbedel bilaaban, berito wax cusub ku iman maayaan. Isbedelku waa inaad ka tagto caajiska, habnololeedkaada aad bedeshid, caadooyinka xunxun aad ka tagtid, waqtigaagana aad ka faa'iidaysid oo aad joojisid waqti lumiska. Waa inaad naftaada ku adkayso akhlaaq wanaagsan, cibaado joogto ah iyo qorshe cad. Faa'iidooyinka aad ka helaysid markii aad samaysid intaas waxaa kordhaya kalsoonida naftaada kalsoonida ayaa kordhaysa. Waxaad gaaraysaa horumar maskaxeed iyo mid akhlaaqeed, mustaqbal wanaagsan, waxbarasho iyo horumar. Ruuxdaada ayaa degaysa, waxaadna ku noolaanaysaa deganaan iyo xasilooni. Caqabadaha aad kala kulmi doonto waxaa ka mid ah caqabado dhaqaale iyo caqabado bulsho. Haddii aad qorshe la'aan tahay, waxaad la kulmi doontaa feejignaan darro iyo dhibaatooyin iyo caqabadooyin fara badan. Sidaas awgeed, isbeddelku waa mid aad u adag in la ilaaliyo oo la joogteeyo. Aayado Qur'aan, aragtiyo Islaami ah, akhlaaq iyo caado wanaagsan. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلهي ما بدلوا حالة قوم إلا أي بدل وحي نفوذ كجرا. isbeddelka dhabta ah wuxuu ka bilaabanaya naftaada iyo gudahaaga. Ayadan waxay ina xasuusinaysaa in isbeddelka dhabta ah uu ka bilowdo nafteena, fikir ahaan, niyad ahaan, akhlaaq ahaan, iyo dabeecad ahaan. Rabbina wuxuu dhigay mas'uuliyad isbeddelka anaga dhexdeena, nafteena. Innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnaahum huda. Waxay ahaayeen dhalinyaro kuwaasoo rabbigood rumeeyey. Inaguna waxaan ugu darnay hanuun iyo toosnaan. Taasina waa tusaale cad oo muujinaysa in isbeddelka hadduu dhab yahay, niyaddaadana uu ka soo go'o, uu Ilaahay kugu garab siinayo. Akhlaaqda wanaagsan iyo caadooyinka qofka muslimka ah, daacadnimo, samir, kala saarashada Rabbi iyo ku kalsoonaanta qadartiisa, iyo mahadnaqa, shukr, inaad Ilaahay ugu macdilisid wax walba uu noloshaada ku siiyey. Faa'iidooyinka shakhsi ahaan aad ka heli doonto waxay tahay horumar shakhsi ah. Marka maskaxdaada iyo habdhaqankaaga la saxo, waxaad noqonaysaa qof xasiloon oo degan. Waxaadna noqonaysaa qof naftiisa ku qanacsan, dadka kalena ay ku daydaan. waxaadna la kulmi doontaa barako nafsiyan ah iyo mid ruuxi ah, dhexgal bulsho iyo sumcad wanaagsan. Xiriiradaada bulshada aad leedahay ayaa wanaagsananaya, dadkuna way ku amni doonaan. Fursado badan waxaad heli doontaa fursado fara badan dhinacyada nolosha, shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaan, maadaama qof hufan oo dadaalaya uu soo jiito fursadaha. Nolol farxad leh waxaad helaysaa nolol farxad leh oo degan oo xasiloon. Marka waqtiga sanadka cusub uu soo dhawaado, weydii naftaada muxuu yahay isbeddelka aan doonayo inaan sameeyo ama aan gaaro sanadka 2026. Haddii uu sanadka 2026 uu noqon lahaa buug, maxay noqon lahaayeen waxa ka buuxa beejka ugu horeeya ee buuggaas? Cinwaanka buuggaasna muxuu noqon lahaa? U diyaar garow inaad qortid buug cusub ee noloshaada ah, maantana bilow. aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga. waxaan idin rajaynaa insha Allah isbeddel iyo horumar wanaagsan. waxaan ogolanaa videogan insha Allah. مع السلامة.